garabkii isbaahaysiga xisbiga kulmiye ayaa maanta si rasmi ah waxa u sheegeen inay ku biireen xisbiga mucaaridka wadani wada hadal maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa u dhaxeeyay xisbiga mucaaridka wadani iyo garabka isbaahaysiga kulmiye ayaa maanta waxa si rasmi ah labada dhinac ugu dhawaaqeen in heshiis is-afgarad oo ku biiritaana ay labada dhinac ku guuleysteen in garabkaasi ku biiro xisbiga mucaaridka wadani kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka wadani Axmed Muumin Said xubno ka tirsan golaha dhexe golaha fulinta xisbiga wadani saraakiil kale oo ka tirsan xisbigaasi waxa laga dhawaaqay garabka toosinta xisbiga mucaaradka wadani iyadoo hogaamiyana loo doortay gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi Axmed Muumin Said oo isagu qaadacay shirki golaha dhexe lagu doortay musharaxiinta xisbiga wadani garabka ay hogaamiyaan murashaxa madaxweynaha xisbiga aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen iyo Cali Maxamed Yuusuf Cali Gurey iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan garabkaasi oo shir jirayd ku qabtay xarunta xisbiga Wiciide magaalada Hargeysa ayaa waxa si wada jira ganafka ugu dhufteen warqadu gudoomiyaha xisbiga Wiciide Injineer Faysal Cali Waraabe uu kaga codsanayo inay bedelaan xubin kamid ah guddi ka kooban 5 xubnood oo garabkoodu hore u magacaabay kuwaas oo ka qayb qaadan doona qabanqaabada shirweyne maxkamadda sare ee Soomaaliland ku amartay inay qabsadaan wada hadalla muddo dheer u socday xisbiga wadani iyo garabkii isbahaysiga dimuqraadiga ah ee xisbiga kulmiye xafladda u qabanay waxaan u wanqalaynaa garabka toosinta iyo cadaaladda xisbiga wadani maadaama heshiiskayagii aan anagu qayb lahayn hoggaanka xisbiga maanta waxaan halkan aan ka magacaabaya xogayihii guud ee xisbiga oo anagu aan lahayn garabka iyagu xeerka xukunka maxkamaduna nama oranayo 5 gaagaaban ha noqdaan 5 cascas ha noqdaan mid madoobiyuu ku jirin midna nama oranayo musharaxa madaxweyne ku-xigeenku inta badan uu ka yimi jiray gobolada galbeedka ee Soomaaliland waxaan doonaynaa inaan ugu bishaareyno in xisbiga uu gaar ahaan qofka ay noqon doono musharax ku-xigeenkaygu aan doorkan eegayno noqdo qof ka soo jeeda gobolada bariga ee Soomaaliland